Alhuda Herbal Clinic oo ah xarun lagu daweeyo dadka xanuunsan ayaa sheegtay in dawo u heshay bidaarta iyo cudurka dilaaga HIV kansarka sida warbixinta uu nagu soo diray wariyaheena Maxamed Xasan Ibrahim Matka. Alhuda Herbal Clinic ayaa sheegtay in dawo u heshay bidaarta muddo kooban ay ku daweynayso. Sheekh Farxaan Cali Dhimbil oo maamulaha Alhuda Herbal Clinic ayaa sheegay in dawo u heleen bidaarta iyo qaar ka mid ah cudurrada dilaaga oo ka mid yahay cudurka caalamka faraha kulul ee ku haya dawadana loo waayay HIV/AIDS-ka. Sheekh Farxaan ayaa ugu horeyn waxaan weydiiyay waxa keena bidaarta iyo qaabkay u daweeyaan iyo haddii ay jiraan cid ay hore ugu daweeyeen. Bismillah, bidaarta runtii waxaan isleenahay saddex qodob baa sababa. وقدبك كوبات ونفقة تمها كجورته يعني نفقة تمها كمقنانيسة أما نفقة مضحو بهنا أيون هيلين سيدا لأجل جل وحنقون سقف كإنه بداريش مركن نفقة دي أوه تمه ويرانيان إلا أي جوران قدبك كوبات إن قدبك الله بعد حاكينا هردت أما تصالحان أبتجا بدار لها أما ضد بدار لا ضحيدين هردت كاسنو كينا يماركتي يعني مارتي تشيل كتشيل هدي وحنا عدوس الله هيدين qodobka saddexaad keena waxa way qofku haduu runtii aad u fikiro ama wax barto ama uu fikiro ama gaajo ha qabato ha fikiro ama wax barto ha fikiro fikirkuna uu keena timahaas inay dhamaadaan marka dawo mu heshan adinku Alhuda Herbal Clinic ahaan xaqiiqda waan u helay bidaartaas soo celinaysa timihiina sidoodii caadiga ay ku soo laabanayaan dawadaasna qofku wuxuu wadayaa 3 bilood ilaahi subhanahu wa ta'ala san ka aragnayna in badan oo bidaar lahayd ba ilaahay subhanahu wa ta'ala timasiiyay in qofku inuu ku dadaalo oo dawada sida la yiraahdo u qaado inuu u qaato way ma jiraan waxaad bidaar noocaas qaba oo idin yimaada daweysaan ha way jiraan waxa kamida wiil Sweden ka yimi runtii barnaamij kale u yimi wuxuu yimi barnaamijyadan cilaajyada ama quraanka la isku akhriyo u yimi markuu noo yimi bidaar buu lahaa waxaanu siinay dawadii qaadaano nidwan kula talinay uu qaatay madaxu mariyay isoo shalaynaya timiisi buu la tagay إن شاء الله تعالى ما دام الهدى هابل أي برامج كان هالشيء وحن كدقينا إن شاء الله تعالى سنوات كصوص عذورنا فري صدق السنة أوه رئيسة وحلقة دي دونا فري قفك فري بقاضنا يا وضن كدونا هتشوجو مش دونا عالم كهكتشوجو ما قيسوا سوق ريا ما قيس على تستقرينا يا كبعدنا والله دريا فرينا ويكون بحسن إن شاء الله تعالى. سيدو كلا شيخ فرحان أيان قدام بنتي ويديي هدي أي دواء هلان عذرها دلاجة سيدا HIV/AIDS-ka يو عذرك كانسرka. نعم ها AIDS-ka والله هلي إنك رجينا إنه ضدك إني برامج كاس خاص ولا صح حريران أو ده كونتاكتك أي ماشى لا صح حريران إن والله هلي HIV كانسر كنا والله هلي عذر أن دواء لهين مله لكن إلهي سبحانه وتعالى قف كسيد وافجيه إلهي سبحانه وتعالى بيكون حرام تيسيد وأقونته أبره مركا على وضع عذر بالدواء والله هي يقول لكن وقرش فريم معه. محمد حسن إبراهيم متكا TV عالمي الصومالي channel كونفر أفريقيا. Alhuda Herbal Clinic oo ah xarun lagu daweeyo dadka xanuunsan ayaa sheegtay in dawo u heshay bidaarta iyo cudurka dilaaga HIV kansarka sida warbixinta uu nagu soo diray wariyaheena Maxamed Xasan Ibrahim Matka. Alhuda Herbal Clinic ayaa sheegtay in dawo u heshay bidaarta muddo kooban ay ku daweynayso. Sheekh Farxaan Cali Dhimbil oo maamulaha Alhuda Herbal Clinic ayaa sheegay in dawo u heleen bidaarta iyo qaar ka mid ah cudurrada dilaaga oo ka mid yahay cudurka caalamka faraha kulul ee ku haya dawadana loo waayay HIV/AIDS-ka. Sheekh Farxaan ayaa ugu horeyn waxaan weydiiyay waxa keena bidaarta iyo qaabkay u daweeyaan iyo haddii ay jiraan cid ay hore ugu daweeyeen. Bismillah, bidaarta runtii waxaan isleenahay saddex qodob baa sababa. وقدبك كوبات ونفقة تمها كجورته يعني نفقة تمها كمقنانيسة أما نفقة مضحو بهنا أيون هيلين سيدا لأجل جل وحنقون سقف كإنه بداريش مركن نفقة دي أوه تمه ويرانيان إلا أي جوران قدبك كوبات إن قدبك الله بعد حاكينا هردت أما تصالحان أبتجا بدار لها أما ضد بدار لا ضحيدين هردت كاسنو كينا يماركتي يعني مارتي تشيل كتشيل هدي وحنا عدوس الله هيدين قدبك الصدح